mid ah waxaan ahay inankii haystay dukaanka ugu kooneeyay talaagadiisii ay halkaa ka muuqato waxaana gubayna wax kale ma ahe waa short birtiina waa idinka arka waa goobo ay ku yaaleen ilaa 6 meheeradood kuwaas oo ay ku ganacsan jireen dad danyara 18 bishan ayaa waxa qabsaday dab xoogan waxa shuf beelay gubtay dhammaan baagabkii iyo dhismihii suuqan yar meheradahan oo ku yeelay xaafadda Balaasa ee magaalada Burco ayaa ahaa kuwa laga biiliyo ama laga masruufo dad danyara oo aan lahayn il dhaqaale oo kale goor hore oo saaka ah waxaanu booqanay goobtan gubatay telefishinka Horyaal ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadkii lahaa meheradahaasi iyagoona nooga waramay sida ay wax u dhaceen waan ka warbixinayaa waxaan ahay mulkiilaha meheradaha mid ka mid ah waxaan ahay inankii haystay dukaanka ugu kooneeyay talaagadiisii ay halkaa ka muuqato waxaana gubayna wax kale ma ahe waa short birtiina waa idinka arka shoorkaana gubay daraadii markii aanu xaruntii heeko tagnay aanu nili shoor baana gubayna waxay tiri wax aan inii hayaa ma jirto ee dacwad furta dacwad aan waxaanu ku furanaana nooma harinba sidaasaanu nahay carruurtii aan u shaqaynaynayna wax daba ma shidan runtaa wacane annagu umaanu baranna maanaan soo istaagin waxaana keenay wax naloo qaban waayay cadaalad darrana hesha maamulka gobolkana waanu tagnay wax jawaabayna siiyeen oo ay ka qabteen arrinka ma jirto marka waxaanu leenahay xukuumadda wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha si degdega in arrinkan masiibada ah ee nagu dhacay wax looga qabto marka waxaad ka mid ahayd mulkiilayaasha meheradaha say wax u dhaceen walaalow anagu xilli dambe meesha ka rawaxnay xilli dambe ayaan rawaxnay subaxii baan la soo garan kun meeshiin way gubatay dad maxaa sheego xasaw noo adduunha dad hantiya baan hayn oo yaryar baan ku korsananay dad danyar baan hayn meel kasta madaxweyne iyo barasaab iyo gudoomiye meel kasta waan tagnaa xanool ku wax laale wax la idin qabanay ma jirto way loo yar qabsada maxkamadda gala marka waxaan leenahay madaxweyne barasaab gudoomiye maxaa sheegay shirkadda leerka sida ugu dhaqsaa fudud maxaan sheegay dhibaatada nagu timi sida degdeg wax noola ka qabto dadna yar baan waxaasan adduuno wax laale wax nooga dambeeyay haba yaraatay ma jirto marka madaxweynaha iyo barasaabka iyo gudoomiyaha waxaan ka codsanaynaa sida degdeg la walaal inuu lagu gurmado aniga magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cali Nuur inanka dukaankiisu gubtay baan anigu dhigtay hanti dhar shandad ila qabo alaabo aanu dhiibtay oo macluuna ay ku jirto ayaa dukaanka Cali Daabad igaga gubtay 6 meheradood ee gubtay anigu hantidaas aan ku leeyahay Cali Daabad meeshiisa ku gubatay hantidaa gubatay waxa ku dhacday masiibo ilaahiye ah masiibad waxna sabab bay leeyihiin waxna sabab ma leh sababta waxa iska leh shirkadda la yiraahdo heeko bir baa gubtay baa aniga leegu yiri dhowr jeer shoor bixisay oo ay ka ashkatootay meheradaha gubtay ay ka ashkatoodeen oo waxba inta wax laga qabtay ciladii aan la dhameystirin birtaasha gubtay 6 meheradood iyo amaano wixii meesha yiil ee ku dambaskaroobay sababteeda waxa leh heeko hadday heeka leedahayna waxa la yiraahdaa xabashidu ka hadalka badan ayay garta siisaa dadka meesha ku gubtay waa hantiyad heekona waa xabashigii ugu hadalka badnaa waxay yiraahdeen markii aanu tagnay dacwad furta waxaanu dacwad ku furanoo kaayagii amaanada dhiibtay iyo kii hantiila ahaa midna waxaanu dacwad ku furanno oo maxkamadda ku tagno oo aanu ku hawlgalno ma hayno ha ciidaanu ka taaganay waxaanu caalamka ka codsanaynaa islaamka caalamka dadka meesha ku gubtay ee waxoodii ku gubteen yad iyo amaano in caalamka islaamka ay arkaan oo ina gaar u yeeshaan oo ay soo caawiyaan aan salaamayo madaxweynaha walaalkan waxa naga gubtay hanti waxoosiyo wax saraba leh maxay hidaystay 12 bishan naga gubteen cid wax naga tiri ma jirto cidna timi ma jirto gurigii barasaabka aanu tagnay waxaan tagnay shirkadda leerka wax la idin hayaa ma jirto waana lagu yiri iyo wax maxay hiday la idin qabanaya toona dacwo furta waxaan dacwo ku furana ma haysano qaarkayaga guryahoodii aan dab lagu shidin maanta marka waxaanu ku codsanaynaa in la caawiyo deeqa waxa ay kamid tahay jiiraanka meheradahan 6 ah ee gubtay bal waxay ka waramaysaa sida xudhaceen bismillaahir rahmaanir rahiim horta anigu waxaan ahay dadkii ilaahay ka badbaadiyay maxay ahaydee 3 habeenimo ayay meesha loosay dad baan ugu garaacay dadka iyaguba guryahoodii hurday baan nahay dad baan ugu garaacay bes maxaan u marxaati ka nahay inay gubtay birtan oo ah huro oo u olooli jirtay oo bixin jirtay short anaga waa dad baan naga badbaadiyo nagu garaacay maxay ahaydee intaas baan cadeynayna maxay ahaydee dadkan oo maxay ahaydee dan yara oo jiiraanka ay ka oo maxay ahaydee cid caawisa iyo cid ay wax ka heleen ilaahay ka soo koobmaan arag waxaan leenahay dadka ay qusaysay
inay maxay hayday leerkan iyo de waxay qusaysay de inay soo caawiyaan ayaan leh Cabdullaahi Jaamac Horyaal TV magaalada Burco.